wararka laga helayo magaalada Garbaharey ee gobolka Gado ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan maamulka garoonka iyo sidoo kale kan degmadaba ay xabsiga u taxaabeen oo gacanta u dhigeen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan militariga iyo sidoo kale booliiska magaalada Garbaharey wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in sidoo kale maareeyihii garoonka isna gacanta lagu dhigay oo hadda uu xiran yahay ammaanka guud ee garoonka Garbaharey ee gobolka Gado waxa hadda xaqiijinaya oo gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya haday ahaan lahaayeen militariga booliiska iyo sidoo kale kuwa nabad sugidda ciidamada garoonka la wareegay ma ahan kuwa Muqdisho laga diray oo waa kuwii hore uga sugnaa magaalada Garbaharey ee gobolka Gado ciidamada ATMIS ee Etoobiyaanka ee ku sugan magaalada Garbaharey ayaa iyagu waxa ay dalbanayeen labadii maalmood u dambeysay sida xogaha aanu ka helnay in garoonka ammaankiisa si buuxda u la wareegaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya Etoobiyaanku waxa ay sheegeen in mar walba ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya taasna waxa ay keentay in si buuxda garoonka magaalada Garbaharey ee gobolka Gado hadda gacanta ay ugu dhigaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya xaaladda garoonka ammaankeeda hadda waa uu hagaagsan yahay waxaana sidoo kale ciidamada gacanta ay ku dhigeen ciidamo fara badan oo kamid ah maamulka degmada Garbaharey kuwaas oo ammaanka garoonka xaqiijinayay hadda si guud xaaladdu ay u degantahay marka la eego waxaana saraakiil u hadashay dawladda Soomaaliya iyagu ay xaqiijiyeen in wax dhibaato aan ka jirin garoonka magaalada Garbaharey ee gobolka Gado diyaaradaha ayaa si caadi ah uga soo degi kara oo wax amni darro hadda kama jirto dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay dhaqdhaqaaq labadii maalmood ugu dambeeyay ka bilowday gobolka Gado iyo sidoo kale Jubbada Hoose halkaas oo marka la eego Jubbada Hoose ay geysay shalay ilaa maanta ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada gorgor ayaa horay u joogay haddana waxa lagu biiriyay ciidamada kale ee Haramcad si guud ahaanba dawladdu sida ay sheegtay ee gacanta loogu dhigo ama ammaanka loo xaqiijiyo goobaha ay banaynayaan ciidamada ATMIS gaar ahaan kuwa Kenya ee jubbooyinka ku sugan dhaqdhaqaaqan kale ee cusub ee ka bilowday Garbaharey iyo guud ahaanba gobolka Gado ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu fursad u siinayaa in ay ku sii siqaan deegaano badan oo ay ku sugan yihiin al-shabaab iyo sidoo kale kuwa Axmed Madoobe la tuhunsan yahay in isaga uu ku sugan yahay Axmed Madoobe muddooyinkii dambe waxa uu gacanta ku dhigay dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Gado sida Luuq iyo sidoo kale Garbaharey halkaas oo la xaqiijiyay in ciidamadii maanta laga wareegay guud ahaanba ay ka amar qaadanayeen Axmed Madoobe dawladda Soomaaliya ayaa iyadu qorshaheeda labaad waxa uu noqonayaa in Garbaharey iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka Gado si toos ah uga bilowdaan howlgaladeeda oo muddo caqabad ku ahaa toddobaadkii hore waxa la xasuustaa in laba jeer oo kala duwan diyaarado halkaas la rabay inay u safraan ciidamada Etoobiyaanka ay soo celiyeen balse amar kale oo soo baxay ayaa Etoobiyaanka waxay ogolaadeen in guud ahaanba ogolaadaan ama inay hoos tagaan oo amarka ka qaataan dawladda federaalka Soomaaliya maadaama magaca ATMIS iyagu hadda ay ku joogaan waxa la filayaa daqiiqadaha soo aadan in magaalada Garbaharey ay ka dagaan diyaaradaha dagaalka oo ciidamo kala duwan wada kuwaas oo la qorsheynayo in ay ku sii siqaan goobaha la filayo in Axmed Madoobe ciidamada taabacsan iyagu ay ku sugan yihiin ujeedka ugu weyn ayaa sidoo guud ahaanba gacanta loogu soo dhigi lahaa madaxweynaha markiisa saddexaad isdoortay ee Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyadoo dawladdu ay amartay sidoo ugu dhaqsiyaha badan gacanta lagu soo dhigi doono balse wararkan waxay ku soo kordhaa kuwa soo aadan ayaad ku daawan doontaan